aad iyo aad ayaa uga xumahay haddii musiibadan hadda baraha bulshada ka maqla hadday run noqoto. war degdega oo na soo gaaraya Maariish Beauty Channel ayaa janaalkeeda hawada laga saaray saacada dhow. qof kasta oo hadda oo telefoonka gacanta ku haysta magaceeda iyo janaalka qoro oo u soo baxayo xaqiiq dhabta ayaa hadda in janaalkii hawada laga saaray. annaga xataa xaqiijinay in janaalkii uu hawada ku maqan yahay. dad badan ayaa isla dhaxmaray in janaalkan oo qori ku dhigla hawada ka saaray maadaama isbuucan hadal xun maartay u dhaxay labada. marka aad iyo aad ugu xunnahay walaasheen Maariish in janaalkeeda hawada laga saaro. ma sheegi karno cidda hawada ka saartay iyo cidda ka dambeysay. waa musiibo aad iyo aad u xun waaye. waa naxdin. waa intaas sano waxa u soo daalaysay hal daqiiqad gudaheeda laga baabi'iyo. waa musiibo rabbaaniya. marka Maariish weli wax jawaab kama helo oo bartay Facebook ay bartay TikTok ma soo dhigin sababta loo jabsaday janaalkeeda. haddaa been u moodo haddeer waa qori kartaa magaca janaalka qor markuu soo baxayo. anaa dhowr mar inta hadda muuqaalka soo duubin anaa dhowr mar oo magaceeda qoray waa isu bixi waaye. marka waxay caddahay marka in janaalka hawada laga saaray. dad badan adaya oo maaragtay war badan ka dhaawacay waxaa janaalkaas ku maqan yahay Qurax ku dhigle. aniga ma oganahay mana aaminsan in Qurax ku dhigle gabadhaas janaalkeeda dhibaateynaa sababtoo asagu ogyahay xanuunka uu leeyahay YouTube-ka iyo dhibka laga soo maro. marka Maariish aad iyo aad ayaa uga xunnahay. waxaa macquul in cilad farsamo awgeed oo hawada ugu maqan yahay laakiin janaalka soo laaban doono. waa jecelnahay oo mar walba waa ku hamuun inuu janaalkaas Maariish Beauty oo hawada ku soo laabto oo sababtoo waa xanuun waxaa intaas sano u soo halgamaysay oo u soo rafaadaysay oo juhdi iyo waqti kaaga baxay in saacada gudahooda hawada laga saaro oo qof islaameed gacanta ku dhigo. marka arrin aad iyo aad ugu naxno ayaa baraha bulshada markaan qabsatay. weli waa war degdega waaye. waa saacadana caawa waaye waxaa janaalka Maariish hawada laga saaray. waa qoray si kasta u qor mar YouTube-ka caadi magaciisa qoray mana isoo baxayo. marka janaalka oo Maariish markaa qoray uu isoo bixi jiray hadda iima soo bixin sababtoo ah hawada ayuu ka maqan yahay. taas ayaa caddeyn ah. marka welina war saxa ayada ma ka soo saarin oo janaalkeeda hawada cid ka saartay iyo qofku maartay ka dambeeyay janaalkeeda. waraysi yar ee soo dhigtay maartay qoraal yar soo dhigtay barteeda Facebook ayay ku soo qortay janaalkeeda hawada ayuu ka baxay. laakiin alxamdulillah ani waa noolahay ma dhiman. laakiin waxaa rajaynaynaa Maariish janaalkeeda inuu hawada ku soo laaban doono saacada ka bacdi ayadoo ku farxad gelinaysa taageerayaasheeda ku xiran Maariish Beauty Channel. weliba warkaas official waaye war ay Facebook-geeda booqo. warkaas ay soo qortay waxayna ku tiri weliba ku celcelisay janaalkeedii hawada ayuu ka baxay. laakiin alxamdulillah aniga waa noolahay ma dhiman. laakiin insha Allah waxaa ilaahay idinkiis rajaynaynaa in janaalkeeda hawada oo si degdeg ugu soo laabto. cilad farsamo awgeed dadkana qaar Soomaalida waa taqaanaa war xumatashiil iyo isku diraala ay ka dawareegaan. Qurax ku dhigle ayaa jabsaday. Qurax ku dhigle ayaa maartay janaalkeeda hawada ka saaray sababtoo waxay rabaan inay ka faa'iideystaan labada qof oo lamaanaha weliba saaxiibada aad iyo aad isu dheer ahaayeen waagi Kenya wada joogeen ay rabaan inay isku diraan oo maad ka dhex shaqeeyaan dhibaato. sababtoo waa taalooga isbuucan in Maariish hadal xun oo Qurax ku dhigle kula hadashay. marka halkaas ayay maartay Soomaali ka faa'iideysanayaan isku diraalaha. asxaabay muuqaalkan hala sheer gareeyo adigoo aad u mahadsan.